Assalaamu calaykum waa akhyaarta mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaan rabaa inaan kaga hadlo sida aad uga dhigan lahayd mobilekaaga Android-ka ama iPhone-ka mid fudud isticmaalkiisa, sida applicationada inaad soo kiciso application badan aad hal waqti ku wada isticmaasho wax culays uusan kaaga imaan. Wadooyin badan ayaa jirta inaad in yaraa ka soo qaatay. Qodobka koowaad, waxaad gashaa mobilekaaga settings, kadibna battery and device. Waxaad arkaysaa qaybta hoose meel ay ku qoran tahay optimize. Optimize markaad dhahdo wixii cilado qaar ku jira ayuu ka saaraa, applicationada background-kana remove ku sameynaa. Meeshan 100% markay kuu noqoto waa okay. Qodobka xiga, waxaad ka tirtaa telefonka programmada aadan isticmaalin. Programmadaas waxay u horseedi karaan mobileka culays. Qodobka saddexaad, waxaa isticmaashaa applicationada versionka ugu dambeeyay, mar walba update ku sameeyay applicationada, mar walba uu soo baxo version cusub. Qodobka kale oo xiga, background-ka waxaad ka tirtaa qaybta recent apps-ka, applicationada aad isticmaashay close all ama clear ku sameeyay. Qodobka ugu dambeeyana, telefonka inaad siiso space haddii ay jiraan waxyaabo badan oo ka buuxinaya maskaxda mobileka, inaad iska tirto qaabka qaar ka mid ah. Mobileka mar walba uu storage-kiisa xoogaa banaan yahay, isticmaalkiisana wuu sahlan yahay. Mar walba oo telefonka ka buuxana, markaas mobileka applicationada qaar inay soo kacaan culays ayay ku noqonaysaa. Muuqaalkeena maantana halkaas wuu ku egyahay. Waa inuu muuqaalka xiga insha Allah. Waxaan idin soo wadaa muuqaal kale oo aad u xiiso badan.